وإذا إسلام صاحب يلمان waxaa khulaasay doonaa filim aad u xiiso badan oo magaciisu yahay Sam Jane Company inta muuqaal gudagal wax ku xusuusinayna muuqaalka la xiriirtay saaxiib nagu cusub hadii aad tahay subscribe soo channelka gambaleelkana furo filimkan wuxuu ku bilaabanaya saddexdan gabar oo saaxiibada ah mid koowaad waxaa lagu magacaabaa Ja mid labaad waxaa la laayoon mid saddexaad waxaa la Boran saddexdu waxay ka wada shaqeeyaan hal company oo lagu magacaabo Sam Jane saddexdooda maadaama ay haystaan kaliya shahaadada iskuulka waxay ka shaqeeyaan shaqooyinka hoose ee shirkadda kafeega ay u geeyaan shaqaalaha kale ee shirkadda xafiiskana way nadiifiyaan shirkadda u shaqeeyaan waxay bixisaa xiisad lagu barayo shaqaalaha hoose Ingiriiska qofka imtixaanka luqadda Ingiriis guulaysto in la dalacsiin doono oo shaqo fiican ka heli doono shirkadda saddexdooda fasalkaas ay Ingiriiska bartaan Ja iyadoo joogta xafiiska waxaa laga soo wacay qaybta sare ayadana waxay xiriirinaysaa hongom telefoon qabto waxaa loo sheegay in maamulaha sare in alaabtiisa laga soo qaado warshada doona saaxiibkiisa uu sheegaya in alaabta la soo qaado asagana wuxuu dhahayaa maamulaha wiilkiisa aniga manin gabdha u shaqeeyo waxaasna shaqadeena ma aha dhinaca kale Boran ayada waxay ku fiican tahay xisaabta ayadana ma aha shaqadeeda in xafiiska si toos ah ugu shaqeyso laakiin maadaama ay jeceshahay shaqadan ayada waxay qabataa shaqada qaban lahayd shaqaalaha kale ayadan ka shaqada dhamayso ayadoo gameska dheelayso waxa uu imaanay maamulaha ayadana isku naxaysa maamulahan wax ku dhaaya adiga ma fiirsatay filimka Ameedus markaan ku fiiriyo filimkaas soo xasuusta anakii filimkaas wada oo ekahay adinkan kala oo egtahay Boran wax ku dhahaysa weligii ma fiirsan filimkaas maamulahan wax ku dhaaya adiga xisaabta Olympic-da ku soo guuleysatay oo xisaabta fiican arsiidiyadan yar ku khasaarinaysa aqoontaada mar walba waxay rabinaa wax ku sheego ahamiyadaas in dad kale xuduudaha ku sameeyeen samee wax walba aad jeceshahay kadibna ka tagaya kadib xafiiska waxa imaanay wiilka maamulaha asagna xafiiskiisa wax dhan ma yeelin alaabtiisa looma keenin kadib waxa qaadayna sakiinta warqadaha lagu jiro wuxuu ku dhahay sakiinta ma isticmaali karaa xafiiskii hal xabta ma yeelay maamulaha kale wuxuu soo jeesanaya wuxuu ku dhahayaa aniga alaabtan la soo qaado soo kuma sheegin oo asagana mid ka hooseeya ku dhahayaa aniga soo kuma dhihin alaabtiisa soo qaado warshada kadib waxay soo raacayaan asagii Ja waxay imaanayaan warshada kadib alaabtiisa ay diyaarinayaan Join wuxuu telefoonka la hadlayaa maamulaha wuxuu ku dhahayaa alaabtaada dhan waa helnay Jane waxay arkaysaa malaay biyaha ku jiro waxayna weydiinaysaa inay qaadayaan malaaygan Join wuxuu weydiinayaa maamulaha inay soo qaadayaan malaayga Join markuu telefoonka damiyo wuxuu sheegayaa Ja inuu maamulaha inuu ku dhahay iska tuura malaaygaas marka meelaas bi mareenada iskaga tuur Jane wuxuu ku dhahaysaa hadaa meelaas ku tuurno dhimanaya kadib Ja malaayga ay soo qaadaysaa waxayna keenaysaa webiga ayadoo ku tiir rabto waxay arkaysaa biyaha inay ku jiraan malaay fara badan oo dhinteen markay gees kale webiga fiiriso waxay ku arkaysaa malaay fara badan inay biyaha ku dhex dhinteen kadib roob ay imaanayo ayadoo bixi rabto waxay arkaysaa in biyaha warshada wasaqda ay soo daadiso inay waxan ay sabab u yihiin oo malaayga sidaas darteeda ay u dhinteen kadib subaxdii markay shaqada timaado waxay u tagaysaa Joy waxayna ku dhahaysaa waxayna warbixin ka gudbina waay biyaha wasaqda ay warshada soo daadiso malaay fara badan ku dhinteen anigana soo arkay Joy wuxuu dhahay aniga waxaas ma soo arkin sidoo kale meesha aniga uma tagin inaan wax soo baarno ama kormeer aan sameeyno adigana waa taqaanaa maamulaha wuxuu yahay inuu qeyl badan yahay ayagoo wada hadlayaan hoona soo fiirinayo kadib meesha ay kasoo tagayaan Joy wuxuu dhahayaa hal eraxta ma dhihi karin ninkaas adigana waxay dhowsaa warbixin gudbi Jane wuxuu dhahayaa aniga soo arkay biyaha wasaqda warshada oo lagu shubayo webiga inay dhib badan keenayso kaliya waxa u baahan in baaritaan yar lagu sameeyo si loo ogaado haddii cilad kale jirto kadib wuxuu dhiibaysaa feelka ka soo diyaarisay meeshaas kadib Joy wuxuu keenayaa feelka hoon wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa inaan wax kuu sheego wuxuu ku dhahayaa maanta wax qaldan ma soo sameysay email qaldan ma dirtay miskii warqadaha lagu daabacay soo jibisay marka hadalay waxay sheegi rabtaa maqle Joy wuxuu ku dhahayaa waa arrin ku saabsan warshada biyaha wasaqda ay sii deyso biyahaasna waxa qaldan in baaritaan lagu sameeyaa rabay feelka warbixinta korneed ayuu dhiibayaa oo marka warqada akhriyo wuxuu ku dhahayaa waxa hubtid miya oo saxan waana warbixin fiican arrintaasna xoogaa saari doona dhinaca kale waxay cunto geenaysay qolka shirka socday ayagana waxay doodayeen qaabka xaysiin ugu sameyn lahayn shirkadda waxay soo saarto iyona ayadan suuqgeynta ay ku fiican tahay markay wareeraan oo fikrad ay keeni waayaan maamulada waxay ku dhahaysaa fikrad fiican meesa aan ugu darsanaysid iyona waxay ku dhahaysaa qofka raadinaysid inuu xaysiinta sameeyo qofkaas astaamahaas oo kale waxaa leh madaxweynaha shirkadda Bill Gates xataa waa aragtay xaysiimaha shirkadiisa Microsoft oo soo dhex muuqda maamuladana fikradaas way ka helaysaa waxayna daawanaysaa madaxweynaha muuqaaladiisii hore waxayna tiimkeeda ku dhahaysaa xaysiinta aan sameeyay madaxweynaha ka warama fikradda inay guuleysanaysa ila tahay kadib iyona ay ku dhahaysaa maskaxdaada way fiican tahay sidee shalay ahayd way kasii fiican tahay maanta maalintii xigtay wax baaritaan ku sameynaya meesha biyaha wasaqda shirkadda ka soo baxayeen ayagoo baaritaankooda waxa uu imaanay madax tuulada wuxuuna weydiinayaa waxay meeshan ka sameynayaan oo wax ku dhahayaa baaritaan yar meeshan ka wadnaa dhinaca kale Boran iyo maamulaheeda ayagoo malaayga Ja soo qaad isla fiirsanayaan ayada maamulaha wax ku dhahaysaa malaayga ma haysan karaa maamulaha wax ku dhahayaa waa haysan kartaa laakiin waxa u baahan tahay inay ilaalisid anigana xaaladeeda ma fiicno kansar ay ku dhacay waana marxaladii ugu dambeysay rajana malihi anigana waqti qurux badan wada qaadanay inta ka wada shaqeynayni maalintii xigtay maamulaha shaqada ku fadhiisanaya isbitaalka ayuu toos aadaya Boran ka baxo aad ay ugu xumaanaysaa maamulaheeda mar walba garab siin jiray inuu saas ugu tagay maalintii xigtayna waxa soo baxayso tiijada baaritaanka biyaha warshada waxayna umaanaya madax tuulada Jane dadka tuulada ee warshada agdagana ay u tagaysaa waxayna sheegaysaa in kiimikada ay soo daadatay in wax khatar ay lahayn kiimikadaas lacag yar oo magdhowne waxay idin siin doonto shirkadda waxayna ka soo saxiixanayaan in warshada shaqadeeda iska sii wadan karto ayagana ay ogol yihiin kadib waxay u tagaysaa ninkii ugu dambeeyay tuulada degan asagana meesha beer tufaax ku leeyahay ayadana waxa ku dhahaysaa waxba ka walwalina waxay kiimikada finalka soo daadatay waan irraali gelinaynaa markay hoos fiiriso waxay ku arkaysaa tufaaxii dhamaa ee beerteen inuu saameeyay kiimikadaas oo tufaaxa xiriir ku dhex dhalay markay asaga fiiriso waxay arkaysaa macal asaga inay kiimikadaas ay saameysay jirkiisa wuxuuna bilaabayaa inuu sayd isku xoqo kadib asxaabteeda ayuu sheegaysaa waxay soo aragtay yoona wax ku dhahaysaa
sheekadaas oo kale hadda ka hor London ka dhacday in qiica warshadaha sunta ee hawada ay galeen waxaan ku dhintay 10,000 oo qofood marka Kuuriya sugwaayin madhow ayadoo la gadanayo oxygen-ta lagu neefsado adigna waxaas qalad ku malihid shaqo fiican qabatay hadan sheekadaas way dhamaatay jaani wax ku dhaysaa sheekadaas way dhamaatay shirkadeena baaritaanka ay samaysay natiijadeeda been ma sheegayso waana ku kalsoonahay hadana isbedelaysaa waxaan asxaabteeda ku dhaysaa laakiin dhiiga ku soo arkay kiimikada phenolka si ay shirkadu u sii deysay biyaha booraan wax ku dhaysaa meesha warqad natiijada soo baxday jaani warqada ay soo bixinaysaa kadib warqada ay wada fiirinayaan warqada natiijadana af Ingiriisi ku qornay jaani wax sheegaysaa natiijada soo baxday kiimikadaas kaliya inay daadatay 1.8 milligaraam oo kaliya booraan wax ku dhaysaa laakiin adiga waxa dhahday inay wax badan ay daateen 1.8 badno tusaalaan waxa ku soo qaadanay cuntada cunaysay waxayna ku daray wax yar biyaha waxayna arkayaan 1.8 inay wax yar ay tahay kadib xisaab ahaan ay xisaabanaysaa kiimikada daadatay ay jaa soo aragtay haloo ahaa booraan wax ku dhaysaa phenolka meesha ku daadatay ugu yaraan waxay noqon kartaa 30 milligaraam hadana biyaha ay ku daraysaa hal qaando waxay cunayeen waxayna arkayaan in biyaha dhan hal mar ay isbedeleen jaana isku naxaysaa yoon wax ku dhaysaa warqad natiijada number ku qoran marka aan wacno kadib numberka warqad ku qornay ayay wacayaan markay jaa la hadasho ayaga Ingiriisi loogu hadlaa ayaga Ingiriis fiican ma yaqaanaan saddexdooda kadib subaxdii marka la gaaro waxay u keenayaan macalinkooda Ingiriiska baro jaana wax ku dhaysaa naweydii baaritaanka biyaha lagu sameeyay inay sax tahay natiijada soo baxday macalinka markuu cabaar la hadlo ayaga waxa weydiinaya dadkoo la hadlo inay yihiin shaybaarka baaritaan ku yaala California macalinka ko faham waayo taleefanka ayuu ku daminaya wuxuuna sheegay jaay asxaabteeda inay meesha ay wacooyin aysan ahayn shaybaar wax lagu baaro ay tahay beer galeed soo saarto waxayna ku taalaa Nebraska waa nambarkooda khaaska ah ayaga kadib ay la yaabayaan ayagana qaybta kale shaqada ay tagayaan waxayna la yaabanayeen sababta natiijada runta ahayd loo qariyay yoon wax ku dhaysaa horta yaa mas'uulka ah baaritaanka in la sameeyo jaan wuxuu sheegay hoyno ka ah mas'uul hadda soo weydiiya asaga yoon wax ku dhaysaa idijini ma qabtaa qofkii dhama ka shaqsanahay ma hadin wax soo weydiiyay horta baaritaanka awadno inta iskaga joojino waxna isgelinin hadii kala dhibaataka weyn ku imaanayso waxa hal mar dhinaca kale ka soo hadlayso midoo kale isla shaqeeyaan waxayna ku dhaysaa natiijada baaritaanka reedanaysiin miya laakiin natiijada runta sida ku heleedeen ani kaliya og ayagana wax ku dhahayaan sida ku heleen oo sheeg natiijadaas ayagana wax ku dhaysaa intee kale ka heleedeen shaybaarka weyn ee Siyool meeshas la natiijada baaritaanka heli kartiin wili hadoo ku jiro natiijada liiska baaritaanada an waxaas ma hubi kadibna ka tagaysaa kadib jaa waxay maanaysaa shaybaarka Siyool dhakhtarka meesha joogana wuxuu sheegayaa in kiimikada phenolka inay tahay sun halisteeda wadato dhibaatooyinkeedana waxa kamid ah in qofka naqas ku dhago ama qof neefshiidkiisa inuu wax khatar ah soo gaaraan sidoo kale kiimikadaas waxay keentaa cudurrada maqaarka waxay kaloo keentaa in qofka cudur kansarka uu ku dhaco kadib wuxuu keenayaa dhakhtarka sareeyo waxayna ku dhahaysaa shirkadeena dalbatay natiijada baaritaanka soo baxday natiijadii soo baxday ma soo dirteen shirkadeena dhakhtarkana wuxuu ku dhahayaa amar hore soo dirnay baaritaankaas natiijadiisa jaani wuxuu dhahaysaa qaybteena mas'uulka ahayd baaritaankaas laakiin weli ma soo gaarin natiijada marka natiijadii soo baxday hal koob ma sii kartaa dhakhtarkana wuxuu ku dhahayaa aqoonsigaada ma itus kartaa ayada aqoonsigeeda shirkada ay u dhiibaysaa dhakhtarka markuu arka aqoonsigeeda wuxuu ku dhahayaa adinka waa idinla yaabee siyaab laha u shaqaysaan maalmka hore ay ku dhahdeen natiijadii soo baxday la baabi'iyo hadan koobiya rabtiin miya waa inaa iska hubiya kadib shirkadeeda ayuu wacayaa jaan way cabsanaysaa hal mar ay soo orday taleefanka ay gadaminaysaa kadib kaarka ka qaadanaysaa meeshana orad ay ugu baxaysaa markay banaanku soo baxdo ayadoo soo bixi rabto waxay meesha ku arkaysaa warqad meesha ku dhagan oo lagu dhiirigelinayo dadka cudurrada halista ah qabaan kadib waxay soo laabanaysaa dhakhtarkii ka ordaysay waxayna ku dhahaysaa kaliya ma sheegi kartaa natiijadii soo baxday xadigii uu dhan yahay phenolka daatay 1.8 oo ka badan yahay ma aho kiimikada daadatay 100 ama 200 ma ka badan yahay hadda ii sheegto waxa laga yaabaa inay badbaadisay qof noloshiisa dhakhtarka intuu calool xumaado ayuu siinaya koobiga natiijadii soo baxday runta ahayd dhinaca kale maamulada waxay u tagaysaa madaxweynaha shirkadda oo lagu magacaabo Bailey waxayna ku dhahaysaa fikrad fiican aan keenay inaad kasoo muuqatid xayeysiinta loo samaynayo shirkadda fikradaas waxaa keentay yoon oo qaybteeda ka tirsan tusaaleaan waxay kugu soo qaadatay Bill Gates sidaas camalina xayeysiin u samayso waana fikrad cusub oo soconayso Bailey markuu fikradaas ka helay wuxuu dhahay yoon yaa lahaa yoon gacantii taagay ana waaye dhahe asagana wuxuu dhahay adigu waa miya qofkii baxarka ingiliye maxaa kugu dhaliyay fikradaas in aniga xayeysiintaas aan sameeyo asagana Ingiriisi kula hadlayay midooda soo dhaxgalayso oo yoonka ma saarsan waxayna ku dhahaysaa qofta Ingiriis ma taqaano mana ku fahmooso yoona gadaal soo hadlayso waxayna ku dhahaysaa sababta fikradaas igu dhaliyay wax kale ma aha sababta adiga u qalantina xayeysiintaas aad samaysid waxaan noqon doontaa madaxweynihii ugu horeeyay shirkadeena iyo xayeysiinka soo muuqdo waxayna noqon doontaa mid cusub oo xiiso badan waxayna kordhin doontaa shirkadeena waxay soo saarto kalsoonida lagu qabo Biilin wuxuu ku dhahayaa waan ka helay fikradaas waana aqbalayaa dalabkiina waana loo sacbinayaa kadib yoon markay shaqada soo baxdo waxay wiish isku arkayaan midii kale kama saarsaneed waxayna bilaabaysaa inay bahadisho waxayna ku dhahaysaa adiga jaceyl ama saaxiib ma leedahay yoon waxay ku dhahaysaa may jaceyl dhan ma lihi ayada waxay ku dhahaysaa waxa leefalkaada inta ma joogaan sidoo adiga kaliya la iskool amaysay rabta inuu ku shukaansan in leefal sare ah sidaas ma nimanka doodo isku dhajinaysaa kuwii yaraa intaa ka tagtay ma hadda madaxweynaha shirkadda isku dhajine yoon ayadana way yaabaneed kadib saaxiibteeda Booraam ay u imaanaysaa ayadoo ooynayso waxaynu sheegay qofta sida u soo baahtish maanta Booraam markay aragto saaxiibteeda ooynayso ayadana ka daba ooynaysaa yoon waxay ku dhahay jaha u sheegin wixii hadda ku sheegay kadib jaha u imaanayso waxayna tusaysaa natiijadii baaritaanka saxda ah ee soo heshay Booraam ka fiiriso warqadda natiijada way isku naxaysaa in natiijada runta soo baxday kiimikada daadatay inay dhan tahay 488 milligaraam waxayna jaha weydiinay waxay sameyn lahaayeen jaan wax ku dhahaysaa maxaa kaloo sameyn lahaynay ama waa inaan iska
ina tirnaa ama shaqadan waa ina iskaaga tagnaa. Yoon waxay ku dhahaysaa maxaa shaqada ugu tagaysaa dambiga qaladkaa gashay maxaa waaye. Jaan waxay ku dhahaysaa dambi weynaa sameeyey dadka tuulada aniga ay aamineen warqadaha u geeyin way saxiixeen. hadda kaban haddaa u tago warbaahinta ama aan u sheegay dadka tuulada meesha degan dadkaas haddaa u sheegay xataa waxaas maxaalis maayaan. suntaas mar hore faaftay dadka xafiis joogaa way ugu daranbo. waxay ku dhahayaan filkaas intoo yaalaa markaa u sheegto hadda mid kale ku weydiiyayaan kadib waxay ku dhahayaan la'aantaada xafiiska ma kala soconaayo anagayna daaliyeenbo. kadib hal mar isbedelay waxayna dhaheen maalin wastaa kafey uu geenayn oo meesha ugu hagaajinayn waaba dhibsay jihada dhan iga dhumiyeen. boorama ayada dhinaceeda ka xanaaqi waxayna dhaheen aniga waxaan ka hortagi doonaa kuwa tuugada ah oo xisaabaadka isdabamarinaayo oo kadib rasiidyada beebeen samaysanayaan. yoon waxay ku dhahaysaa hadda hal cadeen xataa ma haysaa. jaan waxay ku dhahaysaa hal cadeen xataa ma hayay laakiin qofaa ka shaksanahay qof awood u leh inuu amar ku bixin karo in kiimikadaas la daadiyo oo biyaha wasaqda la raaciyo iyo qof kaloo awood u leh inuu warqad saxda ahayd oo mid feeg ah ku bedeli karo. anigana waxaa ka shaksanahay wiilka maamulaha oo hadda xafiiska loo soo bedelay. maalintii xigtay waxay tegayaan ciisadooda ingiriiska kadib ka shaqada yimaadaan shaqadooda ay si tartiiba usii wadanayaan si aan looga shakinin inay baaritaan sameynooyaan. yoon waxay soo xadaysaa bahal ay cod ku duubtaan haddii caddayn hadhowda helaan. maamulaha wiilkiisa ay warqadaha loo soo diray iimeylada u dhexgelinaya warqadii natiijada runta qorneed sidii hadhow u arkaan siduu ugu falcelin karo markuu arko warqad natiijada runta ku qoran. asagana markuu arko warqadda kadib wuxuu soo wacayaa hoon siduu ugu soo dhiibo natiijada baaritaanka ee ayaga haayaan. kadib warqadaas wuxuu ugu soo dhiibayaa jaa kadib jaa waxay u keenaysaa maamulo oo asaga natiijada beenteeda ayuu arkayaa wuxuuna ku dhahayaa inta hal dhibic sagaal sideeda ku qorane maamulaha ku soo dhiibaabe. jaan waxay ku dhahaysaa maamulaha shiroo ku jira kadib dhinaca xafiiska ayuu soo aadayaa. jaa ayadana markuu baxo xafiiskiisa ayay kusoo laabanaysaa waxayna qoranaysaa nambarkii ugu dambeeya uu waco. jaan markay xafiis kusoo laabato waxay arkaysaa maamulo oo uu qeylinaya maamulaha kale wuxuuna ku dhahayaa shirkadan hadday dhibaato ka jirto maxay iigu sheegi weyseen. jaa ayadana waxay ku wada hadlaayeen ayay duwanaysaa. maamulaha waxay ku dhahayaa natiijada baaritaankaa sameyn oo ku soo dirnay kiimikaas ayoo daadanayso iyo waxyaalaha geysay shaqaaleyn mid kamid ah soo arkay. asagana waxaa weydiinaya qofka waxaa soo sheegaya waay horta. maamulaha wax soo fiirinaa hoon asagana wax sii fiirinaa joyna waxuu fiirinaa qofkii koowaad waxaan u soo sheegay jaa uu fiirinaa asagana. maamulo oohna wax ogaanayaa balaayadan wax soo kashif inay tahay jaa. maamulo oohna wax ku dhahayaa anaa ciyaar leeleysiimiya iyo boojboojo ii keenteen wuxuuna bilaabay inuu xanaaqo oo jebi xafiiska oo dhan. maamulaha kalena ku xanaaqaya wuxuuna ku dhahayaa adigii balaayo dhibaato leelin daba joogtaa maraa lacagta qaldan u dhumisid iyo maraa balaayo kale aad samaysid waxa bisdhaha dhibkaada ugu dhammaaday haddana balaayo kale noo keentay kiimikada finalkeedaa daadatay aniga wax xalin karaa wax walba aad banaanka ka samaysid laakiin goob shaqo waaye marka xadkaada soo dhaafin boodboodkan waalida naga jooji. oohan intuu xanaaqo asagoo ku dhufan rabo birtoobatay waxaa qabanaya biili birtoona ka qaadaya wuxuuna ku dhahayaa maxaa samaynaysaa waa inaa isdejisaa wuxuuna weydiinaya shaqaalaha waxa meesha ka socdo. oon wuxuu ku dhahayaa maamul oo waxaa laga yaabaa inuu si qaldan wax u fahmay. biili wuxuu ku dhahayaa waxaa maqan inuu dhibkaada uu badan yahay laakiin aniga taas wax igama gelin adigana waxaa ka tirsan tahay qoyska shirkadan leh marka waa inaa raaligelin bixisaa. oon raaligelin ayuu ka bixinayaa wuxuu sameeyey kadib qaybta kore ay imaanaya saddexdooda. jaan waxay tusaysaa nambarkay kasoo qoratay xafiiska maamul oo booran waxay weydiinaysaa qofka nambarkan leh. jaan waxay ku dhahaysaa nambarka inuu leeyahay milkiilaha shirkadda. kadib waxay dabagalaya maamul oo waxayna arkayaan asagoo qof lacag siinaayo oo warqada ka qaadanayo. kadib hoteelkoo degan yahay uu imaanayaa saddexdooduna way dabagalayeen waxyar kadib qolkiisa ayuu kasoo baxayaa markuu sii socdo kadib ay dabamarayaan qolkiisa ayay galayaan kulligooda kadib qolkiisa ay baaritaan ku bilaabayaan. jaan waxay sariirta hoosteeda ka helaysaa warqadii haddaay soo qaadayay ayagana warqadii ayay akhrinayaan. asagana wuxuu baaritaan ku hayay madaxweyne biili inuu daroogo isticmaalo iyo in kale. asagana baarkoo joogay yoonaa dabagelaysay markuu cabitaanka soo dhargo ayuu soo aadaya qolkiisa. yoona sidii uu dabagelaysay waxaa gadaal ugu imaanaya kuwa Maraykan ah ayada kadib waa isku naxaysaa ayagana waxay weydiinayaan maqaayadda meesha ku taalo ayadoo la hadlayso waxaa xafiiska soo degaya maamul oo ayagana ayaday qabanayaan sida cabaar u dhagayeen. yoona waxay ku dhahaysaa wariga joojiye qashqashaadan iyo balaayidan aabihiina cune ayadana ka fuqayaan ayadana waxay soo dabagelaya maamul oo asagana qolkii asxaabteeda ku jireen ayuu furayay ayadoo meesha ku dhakan waxaa gadaal ugu imaanaysa jaa. yoona waxay weydiinaysaa booran aawe booranna qolkay ku hartay waxayna aragtay malaaga ay jecleed oo meesha saaran ayadoo malaaga fiirinayso waxaa qolka ugu soo gelaya maamul oo kadib ayada way dhuumanaysaa. asagana malaayigiisa ayuu cuntada u soo qabanaya asagoo cuntada siin rabo malaayiga ayuu weynayaa kadib birtiisa ayuu soo qabsanaya wuxuuna bilaabaya inuu raadiyo malaayiga. kadib wuxuu arkayaa in malaayiga uu saaran yahay miiska asagoo bacda u wada cuntada uu furo malaayiga bacdaha dhulka ugu dhacayso. booran ayadane sariirta hoosteeda ayay ku dhuumanaysay asagoo bacda soo qabsan rabo oo booran la arki rabo kadib taleefon u soo dhacayo asagana taleefonka ayuu qabanayaa kadib sariirtoo jiifana asagana taleefonka ayuu ka hadlayaa wuxuuna ka hadlaya arrimaha kiimikada inuu qof tashwiish ku furooyo. natiijadii baaritaanka soo baxdayne inay tahay laba natiijo kala duwan. booran hoostay ku jirtay waxay ku wada hadlayeen way duubanaysay sida cabaar u duubanaysay bahasha cod ku duubanaysay bateri ka dhamaanayo. ayadana waxay ogaanay qofka la hadlayo inuu yahay maamulaheedii kansar ku dhacay oo shaqada ka fadhiisanayay. kadib ayadana yaabaysaa maamul oo cabaar siduu u hadlayay kadib hurdaa qabeys oo hurda kadib ayadana waxay duubtay ayay asxaabteedu keenaysaa mana uu sheegayso qofka la hadlayo inuu yahay maamulaheedii hore. ayagana waxay ku dhahayaan codkan haaf wax manoo taraayo. maalintii xigtay booran waxay isbitaalka ugu imaanaysaa maamulaheedii xanuunsanaay. ayadana waxay ku dhahaysaa wax ma ku weydiin karaa asagana waxay ku dhahayaa haa waa i weydiin kartaa. booran waxay ku dhahaysaa adigii maamul oo maxaa idinka dhexeeyo asagana waxay ku dhahayaa asaga markuu shaqada ku cusbaa anigaa shaqada kala baray wax dhib ama kuu geystay. booran waxay ku dhahaysaa kiimikada fenolka ee daadatay ay ku saabsan tahay qofaana kala bedelay natiijada baaritaanka ay soo baxday qofkaas waxaa sameeyne qof taqaana ma laha. maamulahan wuxuu ku dhahayaa aniga waa dambiilaha waxaa sameeyey kaliya waxa ah qof amarada loo sheegay qaata waxay ahayd hawsheedii ugu dambeysay
dambeysay aan qabto kiimika badan oo phenol ah daadatay ayagana waxay dhaheen wax yar daadatay dibna ma keenayso anigana waan hubay inay kiimika badan ay daadatay booran waxay weydiinaysaa qofkii amarkaas siiyey asagana waxa ku dhahayaa ha isku day inay ogaato qofkaas waa waxa aan ku wanaagsaneen inay ogaanina kuuroon waxaan u malaynayaa sababtaas darteeda inuu cudurkan xun igu dhacay maalintii xigtayne jaa waxay isweydiinaysay qofkii waxaa sameeyey kadib waxa uu imaanaya joy wuxuuna ku dhahayaa soo bax maan shaqaan oo taale kadib waxay imaanayeen tuuladii waxayna tagayaan xafiiska madaxa tuulada gabar ka mid ah dadka tuulada degan waxa uu sheegay inay uur lahayd oo cunugeedana ka dhintay markaa isbitaalka aadan oo baaritaan isku sameeyey waxaana lii sheegay in kiimikaas laga helay jirkeyga joyna waxa ku dhahay baaritaanadaa sameeyeen natiijadii soo baxday wax dhibaataa kuma arkin oo khatar ah jaa markay banaanku soo baxdo waxay arkaysaa dadka tuulada inay xaaladooda sii xumaatay kadib jaa waxay wacaysaa kii shaybaarka joogay waxayna rabtay inay wax ka ogaato qofkii waraaqada natiijada ka qaatay asaga dhakhtarkana waxa ku dhahay waxaan malaynayaa inaan ka qaadin kaarkiisa aqoonsiga laakiin waxa xasuustaa wejigiisa qof caadi u ekaa laakiin kafeegoo cabi lahaa ayuu siyaab la iiga dalbaday hal qaando sonkor caano ah ayuu igu dhahay kafeega igu dar jaan waxay soo xasuusanaysaa kafeega noocaas inuu cabi joy ayadana way yaabaysaa kadib labadooda is soo raacayaan joyna waxa ku dhahayaa intaad kadib ay nooga dhamaatay shaqadeeda mar kale kusoo laabanayno jaan waxa ku dhahaysaa wax dhamaad oo la xiliyay ma lahan intan oo kusoo laabanaynaa lixdii bil ugu dambeysay wax badan oo kiimikada phenolka ah in lagu sii fasaxayay biyaha maamulayaasha sarna way qarinayeen natiijada runta ahayd waxayna rabeen lacag yar inay ku xaliyaan dadka ayagana ma ogaba waxay dadka tuulada saana uga xanuunsadeen wayna iska indha tireen kadib gaariga ay istaajinaysaa markay gaariga kasoo degaan asaga waxa ku dhahayaa adiga waaba soo dartabay saa ku ixtiraamaya booskaada waa hilmaamtay bilowgiina waa kuu sheegay inaa hawshan iska indha tirtid markuu sii jeesto ayada intay xanaaqdo laba dharbax shoo kulul ayay dhabarka kugu dhufanaysaa asagana ooynayo bilaabaya wuxuuna ku dhahayaa gacan adkida gacantaada xanuun waaye jaani waxa ku dhahaysaa dharbaaxshadan xanuun waaye miya xanuunkaada keliya kuu daran dad kale uma jeedid waxay marooyin yaas kugu amray inaa bedesho natiijada runta ahayd kadib baarka ayay imaanayaan asagana waxa ku dhahayaa aniga wax iska cabayo meel fadhiyo ayaa fariin laga soo diray xafiiska saq dhexe ahayd kadib xafiiska imaaday waxaana baabiyey warqadii natiijada runta qorneed waxaasna waxa ugu amray maamulaha xafiiska hoona u sheegin oo i dhahay wuxuuna ii dhibay natiijadii beenta ahayd ee Ameerika laga soo diray markaasaa weydiiyey natiijada runteeda marka la keeno ama dhib noo yimaadaa le maamulahan waxa ugu dhahay maamulayaasha saraa ka cabsanin wax dhib aynoo keenaya ma lahan jaani waxa ku dhahaysaa kiimikada dambe markala ma daadanays ma aho joyna waxa ku dhahayaa hadduusan roob badan di'in laga yaaba inuu daadanin ayaga waxay sheegeen hadduu roob badan yimaado inay daadinayaan ay raacinayaan biyaha webiga wuxuuna sheegayay inuu waxweyn oo dhici doono mardhow kadib habeenkii markuu roob badan yimaado biyaha warshada wasaqda ay raacinayaan kiimikada maalmo kadibna war kiimikada la daadiyey wuu faafayaa dadkan waxay samaynayaan banaanbaxyo waxayna dhahayan warshadan waxay soo saarto wax dhan aan laga gadanin ayada dhan albaabada la iskugu dhufto hala xiro kadib jaa saaxiibteeda wuxuu tagaya midkoo wariye ah waxayna tusaayaan labada warqad natiijada kala duwan ay qoran tahay wariyaan wax ku dhahaya mar horaa warqadaan arkay wax soconayna ma aha jaani wax ku dhahaysaa dadka meesha degan oo kiimikada saamaysa weli ma helin magdhowi lacageed ay xaq u lahaayeen hadday dacwo gudbiyeen ma laga yaabaa inay helaan magdhow wariyaan wax ku dhahaya dadkaas waxay magdhow heli la'ayiin ayagaa mar hore saxiixeen warqadaha ay wax ku heli lahaayeen waana la gaaday hadday dacwo furaanne waqti badan ay qaadaneen laakiin caddayn kale oo xoogan hadday la helo macquul waa wax inay helaan kadib meesha wariyaha markay kasoo tageen jaa iyadoo fikirayso waxay fiirinaysaa warqada natiijada inay ku qoran tahay nambarkii laga soo diray nambarka ayay qalin ku tutoosinaysaa kadib nambarkaas ayay wacayaan markii laga qabtay waxay ogaanayaan hoteelka inuu degan yahay maamulo oo markay hoteelka soo galaan jaa waxay arkaysaa maamulaha xafiiska oo sii socdo sidii cabaar u daba socdeen waxay arkayaan isagoo qolka albaabka garaacayo qolkan waxa soo baxayan kuwii Ameerikaanka ahaayeen warqado u wada ayuu dhiibaya qolkan qof kale ku jiray kadib uu ka soo baxaya waana madaxweynaha shirkadda ayaga markay arkaan inuu Kenya ay tuuga weyn labadooda way isku naxayaan kadib banaanka ay imaanayaan jaan waxa ku dhahaysaa tuuga weyn waa helnay kaliya cadaan xoogan leh naga dhiman inaan helno hadda weydiino meesha warqadaha laga soo diray ayagoo inkirayaan marka kaamirada waxay duubtay ayaa u baahanna inaan helno hadda qolkaas biilina galno sida u galeena marka hadda qolkiisa meel saro ku yeela marka dariishada in laga galay waay ayagoo wada hadlayaan waxa uu imaanay booraan ordayso waxayna ku dhahaysaa maamulihii xanuunsanaa ayay soo sheegay biili inuu yahay tuuga weyn warqaduu isoo siiyey warqadii ayay tusaysaa kadib wuxuu geenayaa maamulo oo wuxuuna ku dhahayaa warqadaan maxaa waaye ayagana waxa ku dhahayaa maamulaha xanuunsanaa soo siiyey maamulaha xafiiska u dhiibay waraaqado fara badan si xisaab xir ugu sameeyay lacagta waraaqadan si qaldan ay meesha ugu soo dhex darmatay asaga xitaa ma ogeen wax warqadan ku qoran waana warqadii ay ku xisaabiyeen kiimikada sii deyn lahayn ee biyaha ku dar lahaayeen waana qorshoodii ugu weynaa ee hore uu sii baaran degeen maamul oo waxa ku dhahayaa waxaan ka dambeeyay marka ayagana waxa ku dhahayaan waxa wax hore loo qorsheeyay waay waxaan ka dambeeyay kuwa Ameerikaanka ah qof kale oo maskaxda waxaan ka dambeeyso jaani waxa ku dhahaysaa adii kaliya badbaadin kartid shirkadda kadib kuligooda is soo raacayaan waxayna baaritaan ku sameynayaan kaamirada waxay duubtay waxaana laga arkayaa warqad natiijada beenta ee dadka soo diray inay ahaayeen labadii Ameerikaanka ahayd kadib waxay furayaan qolka Bailey waxayna baaritaan ku sameynayaan warqadaha qolka ku jira oo dhan ayagoo baaritaankooda yoona ayadoo darbiga ku tiirsanayso albaab kale oo meesha ku yaalo sir ahayd ayaa furmaayo waxayna ku arkayaan qolka inuu dhex yaalo qasnadii ayay furayaan waxayna ka dhex helayaan feelal muhiim ah ayaga markay warqadaha soo habayaan waxay u keenayaan maamulo oo asagna malaagay booraam jecleed ayuu siinayaa ayagana warqadii ayay siinayaan oo muhiimka ahayd kadib markuu gudaha galo asagoo fiirinaya baakadaha wuxuu ogaanaya inay qiyaameen inay warqado beenaha meesha u geliyeen ayagana waxay qaateen warqadii runta ahaay markuu albaabka soo furo askaraa uu sii diyaarsaneed waana la xirayaa ayagana warqadaha sidee u wadeen waxay u geenayaan kii wariye ahaay wuxuuna asxaabtiis ku dhahayaa warbixintan waxaa ku qori doonaa buga ugu horeeya joornaalka ayagana banaankay ku sugaayeen asaga markuu soo baxo ku dhahayaa haka cabsanina beri buga ugu horeeya joornaalka ayaa warbixintan kusoo daawaceena ayagana way farxayaan kadib subaxdii
subaxdii marka la gaaro waxa joornaalka lagu soo qorayo ma jirto ayana kii wariyaha qiyaamay feelalka u keeneen Billy asxaabtiisa gatay ayana maamulaha xafiiska qabanayo wuxuu ku dhahayaa wariyaha ii sheegay inaan ka dalbateen bago hore joornaalka in lagu soo daawo ceebta shirkadeena maalmo kadibna maamulaha xanuunsanaa uu dhimanaya janaasadiisa hal qof oo shirkadda ka tirsan ma imaanin Boram asxaabteeda kaliya imaadeen jaana shirkadda kama tagin waxaana lagu inqaabay inaysan qof dhan la hadli karin maamulaha wuxuu dhahayaa hadaa booskaada ku jir lahaa mar hore iska casilin lahaa shaqadan waan iskaga tagi lahaa meeshaan dhan dhinaca kale jaa saaxiibtooda kale waxaa lagu amrayaa waraaqadii kee wariyaha ay kasoo qaadanayeen inay qaado ay kor ku soo gubto kadib qaybta kore ay imaanaysaa warqadaha ay gubaysaa kadib jaana markay shaqada ka soo baxdo ayadoo xanaaqsan Boram waxay ku dhahaysaa xafladan iska aadno si aan jawiga soo bedelano kadib Yona uu imaanayso waxayna ku dhahaysaa nabada waxaan aadaynaa xiso dheeraad ah aan ku baranayno luqadda Ingiriiska ayagoo iska sii socdaan jaa hal mar ay ku qaylinaysaa waxayna ku dhahaysaa adinka si aad dilacsan yar waxaan u heshaan ma luqadda Ingiriiska ugu baranaysaa Yona kii markay xafiiska la shaqeyn jirtay oo dhibaysa ungal maxsuusatiin baaburis dhanam yaaradaha ka jibiyay adikana Ingiriisi waxa loo jooginaa wadin aniga dhibkii heesdam uu jeedin orda iska baxa aniga bis dhiiba wax la yiraahdaa waa cadeen ah Yona ku dhahaysaa sababtaas darteeda waa inaan xiso dheeraad ah oo Ingiriiskan u aadna aniga dhinaceena qof is dhiibtay ma lahan waxayna u sheegay waraaqadii intaysan goyn midii inay ka soo qaadad feelashii ay tusaysaa kadib jaaw ay ku farxaysaa waxayna imaanayaan galaaska Ingiriiska ku bartaan meesha ay baaritaanka sii wadayaan ayagan daalan ayagoo jiifaan waxa ay imaanayaan asxaabtooda kale waxayna bilaabayaan kulligood inay baaritaanka sii wadaan sida shirkad tuugadan ugu qaban lahaayeen macalinkooda Ingiriiska baran wuxuu bilaabayaa inuu u sharxo feelasha soo heleen wuxuu ku saabsan yahay in qofka shirkadda lahaay sidii loogu qasbi lahaa inuu wareejiyo shirkadda saamiyadeeda oo dhan waana qorshe isticmaalaan ganacsatada tuugada ah in shirkadda qiimaha saamiyadeeda in hoos loo dhigo si hoos loogu dhigo in baxar la geliyo waa shirkadda kadibna qiimo yar lagu gato shirkadaas jaa shaqaalaha shirkadda maqaayada isku imaanayaan ayagana waxay ogaadeen in Billy shirkadda saamiyadeeda uu qiimo yar uu gadaro kuwa Jabaanees ah kadibna wadankiisa America inuu dib ugu laaban doono markaas dadka tuulada wax lacag oo magdhow aan mehelayaan subaxdii marka la gaaro Billy shirkadda ayuu imaanayaa markuu xafiiska soo galo wuxuuna arkayaa shaqaalaha shirkadda oo dhan inay xafiiskiisa ku sii sugayeen ninkii shirkadda lahayna hore u soo wadeen milkiilaha shirkaddan wuxuu ku dhahayaa Billy in aan gaadha rabtamiya shirkaddaada mid caalami ah ka dhigay dhahday saama ku balanaada shirkadeeda inay ii yarata ii fiican mid caalami marabi dadka badan ee shirkaddan ka shaqeeyaan waxay cuni lahayn ka raadsadaan bas waa inuu kala wad kadib shirkadda waxay imaanayaan kuwii Amerikaanka ahaayeen iyo kuwa kale Jabaaneeska laga gedi rabay milkiilaha shirkadda wuxuu dhahayaa wadankiina Amerika ka imaadeen ku laabta shirkadeeda waxa gaday ma lahan Billy adan shaqada waan ka buriyay saaca laga bilaabo iska bax Billy wuxuu dhahay odayga shirkadda leh warkaada hadaa dhamaysatay albaabka iska bax adeegna shirkadda ma igu burin kartid shirkaddan saaca laga bilaabo adeega ma lihid shirkaddan waxa kaliya mid caalami ah balantii awada galan waa ka soo baxay sheekadii horena way dhamaatay oo shirkadda maamulkeeda la iska dhaxlayay wiilkaadan shirkadda musiibo u keenay kiimika badan oo biyaha ku sii daayay kadib laakiin shirkadda aniga badbaadiyay waxaana keenay dad Jabaanees ah oo shirkadda maalgashadaan Billy qoladii kale ayuu heshiis kala galayaa maadaama uu saami fiican ku leeyahay asaga markay heshiis kala saxiixdaan jaa shaqaalaha kale hal mar ay ku qaylinayaan Billy hal mar ayuu ku xanaaqayaa wuxuu dhahay war qaylada naga joojiya jini hanin kor qaylaya jaan wuxuu leeyahay shirkadda ma gadi kartid adiga kaligeeda ayadoo wax laga weydiin dadka saamiyada kale ku leh kadib irid waxa soo galayaan Honey teamkiisa oo kortoomo ku wadaan waraaqada fara badan Billy wuxuu dhahayaa maxaa waxaan la soo aruuriyay Yona wuxuu sheegaysaa inay tahay waraaqada dadka saamiyada ku leh shirkadda ayagana wixii saamiye shirkadda ku lahaay ay xaafadooda ugu tageen waxayna ka soo saxiixeen in aan la gadi karin shirkaddan ayagoo ogolaansho laga haysanin Boram waraaqada saamiyada ay xisaabinaysaa waxayna ku dhahaysaa Billy inuusan awoodin inuu shirkaddan gado waxaana saamiye waxay dhan yihiin 38% mana gadi kartid Billy wuxuu dhahayaa waxaas aabadiin macquul ma aha Jaan wuxuu dhahaysaa macquul waaye in uu kala wada meeshaan jaa shaqaalaha kale banaanka ay soo baxayaan shaqaalaha kale shirkadda way u mahad celinayaan maadaama shirkadda badbaadiyeen Billy askarta xiraysa asii tiimkiisa dadka tuuladana lacag badan oo magdhow ay loo balan qaadayaa in la sii doono jaa saaxiibadeeda imtixaanka Ingiriiska ay galayaan maalmo kadibna saddexdooda la dilacsiinaya Boram shaqada jeclay xisaabiyaha ayay helaysaa Yona qaybta marketingka ay jeclay ayaa loo dhiibayaa jaa ayadna qaybtii rabta ayay helaysaa halkaas ayaa nooga dhamaaday filimka ay ilaamina muuqaalka laga saartay saaxiibka cusub channelka hadaa tahay subscribe soo channelka